السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Juba Institute of Professionals. وكورسنا Intermediate English course. وأنا بوقي 4000 session English وارس book 1 و10 كلمة تمنات. إحنا قبل هنا بيج كصدني السجالات. أريدا أكو قادم دون 10 كان وحكم ذا. أريدا كوي بقولي كوي تمنات أو تحني أريدنا وغوست. غوست وحالها أريدا أصل غوست وحالها. waxay dadka khuraafaadka aaminsan ay dhahan qofka dhintay ruuxdiisii ayaa soo baxaysay qofka dhintay ayaa ruuxdiisu soo baxaysay ghost reer aakhiraad waxay dhahan ghost waa reer aakhiraad waxay dhahan sidoo kale ghost waxaan jirin wala sidoo waxa jira ghost waa kas meelaha musuqmaasuq ka jiro waxa laga yaabaa shaqaale aan jirin in la qorto ghost waa kas waa shaqaale aan jirin oo lacag ugu qaato way noqotaa marka ghost waa reer aakhiraad. A ghost is the spirit of dead person. Ghost is the spirit waa ruuxda of a dead person ruux dhintay ayaa ruuxdiisa soo laabanaysa ayaa aaminsan waa caqiida aan saxayna khuraafaad. Many people dad badani are afraid of ghosts waxay ka cabsadaan ghosts reer aakhiraadka ka cabsadaan reer aakhiraadka ay ka cabsadaan. Ereyga waxa individual waa shakhsi. An individual is one person waa hal ruux. Only one individual hal qof oo kaliya could win ayaa ku guuleysan karo the bicycle race tartanka biskilitiga. Bicycle race waa tartan bicycle la waa biskilid erga race sidoo kale qoymiyadna wuu noqdaa. Only one individual hal shakhsi oo kaliya could win ayaa ku guuleysan karo the bicycle race tartanka biskilitiga. Erga waxa pet waxaa la xayawaan dadka la nool oo badanaa aan wax faa'iido gaar ah loo qabin sida bisad oo kale ama mukulaasha ama bisad yaanyuurta mukulaasha oo kale wax la mid yaa waxa la pet dadka qaarkoodna dooliga iyo ka dhintaan ee shimbiriyo. A pet is an animal waa xayawaan that lives with people dadka la nool. Out of all my pets dhammaan xayawaanadayda petsiga the dog is my favorite eyga ugu jeclahay. Marka pets waxaa noqon karo dadka qaarkood dog eyga wuxuu yahay pet sidoo kale dadka qaarkood waxa waa cat bisada dadka qaarkood mouse oo dooliga dadka kala duwan dadka qaarkood somebodies ka dhintaan. Marka erga pet waa xayawaan dadka la nool oo faa'iido gaar ah ama kaana lagu qabin. A pet is an animal that lives with people dadka la nool. Out of all my pets dhammaan petskayga oo dhan the dog is my favorite eyga ayaan ugu jeclahay. Favorite waxaan ugu jeclahay my favorite sandwich my favorite dish my favorite clothes my favorite shirt. Ereyga waa reach waa gaadid horena u saaranay waa verb waa ficil. To reach means to arrive waa markaad gaadho at a place meesha u socoto markaad gaadho. To reach waa gaadid markaad meesha aad gaadho means to arrive at a place markaad meesha gaadho. I was happy waan farxay ama waan faraxsanaa to finally reach inaan ugu dambeyntii gaaray my destination meesha u socday. Erga destination waa meesha aad u socotay aad u safraysay waxa la destination. Haddii qora what's your destination xageed u socotaa weeye waxaan ku dhihi karaa Nairobi ama Mogadishu ama Hargeysa oo kale. As I was happy waan ku farxay to finally reach inaan gaaro my destination meesha u socday. Ereyga waxa return waa noqosho ama celin. Return noqosho way noqotaa celinna way noqotaa waana verb ficil way. To return is to go back waa inaad ku laabato to a place meel. Return waa laabasho noqosho ama celin. I was happy waan farxay to return home inaan ku laabtay gurigaygii to my mom waliba hooyaday after school ka bacdi. I was happy waan faraxsanaa to return home inaan ku laabto guriga to my mom hooyaday after school kadib. Ereygaas aas ereyga waxa survive waa ficil waa badbaadid. Survive hala badbaadid markaad wax ka halis ka badbaado. To survive is to stay alive waa inaad sii nooshahay stay alive inaad nooshahay. My dog survived eygayga wuxuu ka badbaaday fall into the water biyi ay ku dhacdo fall dhicitaanka ay ku dhacdo into the water biyi oo macnaheedu waxa weeyaan kuma dhimanin way marka survive waa badbaadid dadka badbaad maxay ogana survivors. How many survivors from accident shirka meeqa ka badbaado how many survived from accident meeqa shirka badbaaday survivor waa badbaadi survivor way noqotaa noonkeedana survivor way noqotaa. Waayahay erey kale barayna ma taxaween upset xanaaqsan way an xanaaqsan ama murugaysan. To be upset is to be unhappy waa markaad faraxsan about something wax. Sababta she was upset way xanaaqsanayd because she broke her toy waxay jabisay bombalaheeda. toy waxaa lahaa
waxaan carruurta ay ku dheeldheelaan waxaa lahaa toy bombale iyo alabay waxaad dhihi karto she was upset way xanaaqsaneyd because she broke her toy waxay jebisay bombaleeda ereyga marayna waa voice waa cod a voice is the sound waa dhawaqa a person makes qof uu sameeyo when they talk markay hadlayaan or sing ama ay heesayaan sing waa heesid talk nafdib a voice waa codka is the sound waa codka dhawaqa a person makes qof uu sameeyo when they talk or sing markay ay heesayaan he used a microphone wuxuu isticmaalay microphone so everyone could hear si cid kasta u maqasho his voice codkiisa marka ereygaas labada erey u dambaysa waa weather waa cimilada ama jawiga the weather is the condition of air waa xaaladda mataqaanaa hawada sida hot inay kulushahay the weather is hot today rainy inay roob tahay windy inay dabeel tahay it's xilal the weather can be sunny dabaysh waxay noqon kartaa qoraxdi cimiladu waxay noqon kartaa sunny mid qoraxa rainy mid rooba cold mid qabow hot mid kulul windy mid dabayla saasay noqon kartaa ereyga u dambeeya wise waxaa lahaa xikmad leh caqli badan wise asalka waxa weeye xakiim qof caqli badan weeye xikmad leh yani qofka markuu wise yahay wuxuu isku darsaday khibrad iyo caqli qofka wise waxaa dhihi karaa markuu khibrad iyo caqli leeyahay marka khabiir camal lama dhihi karo to be a wise is to use experience waa inaad isticmaasho khibrad and intelligence caqligaada to make good choice inaad dooq fiican samayso marka ereyga wise asalkeeda waxaan anaa ereyga ugu dhow macnaheeda waxa weeyaan xikmad wise xikmad badan leh ereyga ugu dhow waa wise xikmad badan leh waana wise qofka waxaa dhihi karaa hebel waa wise ama waa mid xikmad badan waa markuu isku darsado experience and intelligence experience waa khibradda intelligence-na waa caqliga intelligence maxaa la caqliga sidoo kale sirdoonkana intelligence baa la dhahaa ogow ereygan intelligence sirdoonkana waa loo isticmaala lakin hadda caqliga laga wadaa to be wise is to use waa inaad isticmaasha experience khibradda and intelligence iyo caqliga to make good choice inaad dooq fiican samayso make good choice waxaa weeye inaad dooq fiican samayso really many people dad badan believe waxay rumaysan that owls in guumaystu waa shimbiraha kamid are very wise animals inay yihiin xayawaan caqli badan many people believe dad badan waxay rumaysan that owls shimbirka guumayska dhayo are very wise animal inuu yahay xayawaan caqli badan aad iyo aad badan maasantiin cashirka saasaan usoo koobaya fadlan dhegayso buugga aan kuusoo diray asagoo dhegaysiya